gudoomiyaha ururka saylada xoolaha ee xisbiga ee barwaaqo Cabdiraxmaan Aadan Yuusuf iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka ururkaasi Salma Cali Xasan waxaana ay ka warameen dhaqdhaqaaqa suuqaasi iyo sida uu socdo maadaama ay nagu soo dhowdahay munaasabada Ciidul Adha. waxaa loo diyaar garoobayaa Ciidul Adha ciidii barakaysnayd dadku xaramka tageen dadka dibadda joogaana ay ducaynayeen Adhada. waxaa halkan lagu kala iibsanayaa xoolaha wananka, orgida, idaha, xoolaha noocaasa oo qiimahoodu kala gegedisan yahay. waxaanu nahay dadka reer Soomaaliland muwaadiniinta qarannimada danta ummadda ilaaliya aan ogolayn wax ku leexleexda qarannimo. alxamdulillaah rabbil caalamiin waxa lagu jiraa nabadgelyo, waxa lagu jiraa bilshii carafo. waxaan kuu sheegayaa inay sanadka xooluhu ugu badnaa Soomaaliland ka baxeen ee carafada xooluhu ugu miisaanka badnaa inay ka baxeen ay ka dhoofeen dekada Berbere Soomaaliland. imakana waxa loo jeedaa diyaar galowdii Adhada ma sha Allah aad iyo aad bay xooluhu fiican yihiin, lacag fiican baa la siisanayaa, qiimuhu sanadka aad buu wanaagsan yahay. madda halkan igaadan shacabka u dirayaa horta hambaliyo ciideeda waxaan leeyahay bashbash iyo barwaaqo aynu ku gaadhno. aad iyo aad baa u fiicannahay. waxaan ku yidhi sayladayadu waa sayladaad sheegtay barwaaqo ma sha Allah iibkeeda xoolaheedu wixii wada ma sha Allah aad bay u fiican yihiin. waxaanu ka cabanayna dawladayada iyo citoona ma jirto. suuqa ganacsiguna aad iyo aad buu fiican yahay. Maxamed Maxamuud oo kamid ah qurba joogta Soomaaliland ayaa isna dhankiisa ka hadlay waxaana uu ka waramay dhaqdhaqaaqa suuqa kala iibsiga ee saylada xoolaha ee xisbiga. ciidii ka horeysana waxaan ku ciiday wadanka Imaaraadka Dubai la yiraahdo. halkaas oo ariga Soomaalidu aad u yimaado oo xoog looga iibsado. marka waxa weeye ariyuhu halka ariga Hindiga iyo ariga Imaaraadka iyo ariga meelaha kale laga keeno way ka yara waawan yihiin. ariga Soomaalida si loogu sicil yahay oo ugu dhadhan fiican. marka waxa lagu eegaa arigu meelaha 6 kiilo 7 kiilo ilaa 8 kiilo. neefka ilaa 7 kiilo waxa la siiyaa ilaa $150. wixii ka badan 8 kiilo ilaa meelaha gaadhana ilaa waxa la siiyaa 800 oo lacagta halkaas oo ku dhow $200. sanadkan ilaahay wuxuu ii qoray inaan halkan joogo ciidan ku halkan kula ciido. sayladii xoolaha xisbiga 26 Juunna aan maanta nasiib u yeeshana ka iibsado. ariga halkan aan ku arkayaa waxa weeye ari ishu ku bikaacsanayso aad u qurux badan aba kala yaryaraado qaarkood ay imkay safarka ka yimaadeen. ari ahaan kana ka waaweyn oo ka mac oo ka dhana fiicnaan. inkastoo ariga Soomaalidu kulliba la jecel yahay iyo qofka iibsanayaaba inay ka fiirsadaan neefka iibsanayaan. qofka wax iibinayaana inaanu dadka u soo qarin neef in leh oo calaamad leh oo aan macayn ama aanu ugu sheegin neef magaalada laga soo dhaxkeeyay miyi baan ka keenay oo ay ku noqonayso khiyaamo. qofka iibsanayaana dee waxa weeye inuu aad u eego neef bad qaba oo caafimaad qaba oo waliba shilis way ilaahay uu neefkan u hadaynaya. marka shilinkana ku bakhaylin neefku ka weyn yahay ilaahay u